السلام عليكم ولا مقعي واسي أحمد وحان كميدا شعب كرير بدلان وحاي قوانين كميدا عيدن كدفاع بدلان كاشكا أيان كو قادنا مشاركة قيبتودي marka way naga diideen yaanyadu way naga la diiday oo hilibkii way naga la diiday oo barafkii way naga la diiday maxaan ku qaadanaa inikii waana siiyay dawladda iidaana siisay kaashka markii inay nagu diidaan xaq ma ahan guriyii way noo yaalaan raggeeni baa ku qaatay oo xabada u taagan marka waxaanu rabnaa dawladda inay kaashka naga aqbasho aad baan dawladda ugu mahad celinaa kaashkaas inay naga aqbasho ayaan ka rabaa salaamu calaykum waxaanu ka cabanaynaa haddaan nahay dadweynaha suuqa Boosaasood iyo dadweynaha jooga ku nool gobolada Boosaaso dhan lacagta kala gurka ah ee la diidayo iyadoo oo dawladdu lacagii ay soo samaysay calaamado loo kala sameeyay taa oo markii hore laga soo hirgelinin inay dawladdu markii hore lacagteeda xadado u kala samayso inay iyadu kala celiso lacagteeda haddii ay wax ka sheegayso lacagta taa oo keenaysa lacagtii markay suuqa soo galo sixir barar hoos u dhacay dhibaatooyin waaweyn oo danyarta soo gaadhay oo waxba lagu kala gadanayn suuqii oo wax lagu kala qaatay la yahay dadweynuhu oo waxay kala gataan la taas oo keenaysa nin waliba inuu guriyihiisa ku baxtiyo waxa weeye hadii la dilo lacagta Soomaaliga wax kala soconaya oo dalku kala qaadanaya ma jiro dalku waa Soomaali wax kala go'go'an ma laha wax iskala bedelay maaha annagu Mareykan ma nihin uma aanan lacag shisheeye ma haysano namana anfacdo wadankana kuma filla waxa weeye dalka jeebweynaha ee ama dawladda la shaqeeya ama nimanka la haysta bangiyada kaliya baa heli kara dollar ninaan dollar helayn oo wuxuu qaataa 100 kun yahay oo xamaali ah 100kiisii kun marka 3 meelood loo qaybiyo ee la yiraahdo meel ka mid ah baa la qaadanaya labadii meelood oo kale la diido wuxuu ku noolaanaya garan mayno cabasho ilaahay baa iskale waxa cabasho loo gudbinaya dadka dadweynaha ku nool Boosaaso ay isamada u horeeyaan ee baarlamaanku ku xigo ee madaxweynayaashu ku xigaan ee madaxweynuhu ku xigeenku ku xigo waxaanu u sheegaynaa hadii dalka iyaga u taliya ilaahay baa tala iskala tanana looga baahan yahay inay go'aan degdeg ka gaaraan ay ka soo saaraan hidayta culus si lacagta waxa iska lahayd markii hore Puntland iyada iskale calaamado ma kala leh lacag cusub hal la qaato lacag horena hal la diido lacagtii waa tii madaxdii hore ee Puntland sameeyeen waxa sameeyay Janaraal Cadda Muuse Allah u naxariiste waa lacagtiisii lacagta maanta lagu diiday waa lacagtii wadanku iska lahayd lacagtii wadanku iska lahayd hadii la diido wax soo kordhaya garan mayno oo dhibaato ahayn dalka waxa loo baahan yahay dawladdu waa isku mid dalkuna waa isku mid madaxweynaha hadda jooga iyo madaxweynihii hore iyo madaxdayadu kulli suuqaya mid weeyaan waxaan u sheegaynaa dawladdu waa inay dadkeeda ilaashataa dadweynaheeda danaysaa hadii lacagta la kala xadadayo waa lacag la isla og yahay oo mowqif leh oo inoo soo saareen oo la yiraahdo lacagtaasan qaadan karnaa oo inaga inaanfacda oo dadweynaha wada anfacaysa waa inay dawladda dadkeeda u soo saarto waxaan rag iyaga u sheegaynaa